maxaa iska bedelay go'aankii saraakiishii ciidamada Itoobiyaanka ah ee muddada kooban ay ugu qabteen in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya isaga baxaan guud ahaan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xaawo maxaase ka jira in Maxamuud Sayid Aadan fariin dhabarjab u noqotay ay la wadaageen saraakiisha ciidamada Itoobiyaanka dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ciidan oo laga dareemayo duleedka degmada Balad Xaawo warar iyo xogo dheeraad ah oo arrimahan ku saabsan ayaan doonayaa inaan idinkaga dabageeyo muuqaalkan soo dhawaada haddii aad nagu cusubtiinna nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada nagu xiran aragtidaadana qaybta faalada ama commentiga kaga soo dhiibo hagaagkan ku bilaabo iyadoo oo muddadii 3 cisho ah ee loo qabtay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo Cabdirashiid Janan ay gabi ahaanba isaga baxaan degmada Balad Xaawo iyo degmooyinka kale oo ka tirsan gobolka Gedo isla markaana ay saraakiisha ciidamada Itoobiya ay dalabkan soo jeediyeen waxa tan iyo markii ay ilaatay muddadaasi soo baxaya xogo iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sababta keentay in Itoobiya ay tallaabo qaadi weyso waxaana xoguhu ay sheegayaan in ciidamada dalka Itoobiya ka socda saraakiishooda lagu wargeliyay in gabi ahaanba ay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ay ku taageerayeen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kadib markii ashtako ama cabasho ay dowladda federaalka Soomaaliya la wadaagtay Itoobiya isla markaana muujisay sida Itoobiya ciidankeeda ugu soo xadgudbayaan madaxbanaanida Soomaaliya saraakiisha ku sugan gobolka Gedo oo qaarkood Addis Ababa looga yeeray waxa ay bixiyeen amarro lagu hakinayo weerar iyo abaabul xoogan oo la doonayay in lagu wajaho xarumaha iyo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo Cabdirashiid Janan ee ku sugan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xaawo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo saraakiil Itoobiyaan ah xiriir ay la sameeyeen waxa lagu wargeliyay inay dib u gurasho ka sameeyeen tallaabadii ay doonayeen in gobolka gabi ahaanba kaga saaraan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ciidamada taabacsan ee dadka deegaanka ah ee aragtida dowladda federaalka Soomaaliya sida weyn oo la dhacsan xoguhu waxay tilmaamayaan in Itoobiya loo sheegay ama lagu wargeliyay inaysan jirin qorshe dowladdu ay ku doonayso in ciidamo masaari ay gobolkaasi ku geyso waxaana tani ay keentay in dib u gurasho Itoobiya ay ka sameyso arrintan waxay raaligelin ka bixiyaan dhaqdhaqaaqyadii military ee ay ka sameeyeen xer UK oo 2 diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaco oo Itoobiya leedahay halkaasi dul tagay 2 maalin oo isxigtay waxaana tani ay tahay dhabarjab iyo fariin aan u wanaagsaneyn dhinaca Jubbaland iyadoo Maxamuud Sayid Aadanna uu sheegay in mar kale ay is abaabuli doonaan wuxuuna dhinaca Kenya uu u tallaabay iminkan uu ka wada abaabul xoogan waxaa duleedka degmada Balad Xaawo laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan oo ay sameynayaan ciidamadii Jubbaland ee looga adkaaday gacan ku haynta degmada Balad Xaawo qorshahooduna waxa uu yahay inay dib ugu soo laabtaan degmadaasi maadaama kol hore awood ciidan halkaasi lagala wareegay hase ahaatee iminkan oo gurmadyo dhinacyo badan leh ay heleen ay doonayaan inay dib ugu soo laabtaan degmada Balad Xaawo hase ahaatee markan waxa ay waayeen gacantii dhinaca Itoobiya ay ka helayeen halka Kenya booskaas ay u soo buuxisay dowladdaasi waxay qorsheynaysaa in tallaabooyin waaweyn oo dhinaca Kenya ku qotoma ay qaado saacadaha soo aadan wixii warar ku soo kordho xogahan wararkeena dambe ayaa ku daawan doontaan nala sii jooga saaxiibayaal nabadgelyo